ديك بوكو حرامي يا صل ديك جيسي ودي اللي جوراي بوكو حرامي كما حرامي هو يدي يا بيل بيبي تدقبناه رجعوا بيبي كويا يلا هل كان عيدي كما تشتغل waxaanu maanta halkan idinka cadaynaynaa qadiyadda iyo mabda'a iyo deegaanada amniga deegaanka inaanan cidna magan uga noqon doonin cid kasta oo soo faragelisa deegaanada ama khalkhal amni ka wada inaanu gacan bira kaga hortagi doono الله أكبر الله أكبر سيدي أبوان كشيء maanta waxaanu halkan tababarka ugu soo xidhnay oo juhdi dheer iyo dadaal dheer kadib oo runtii aan waqti badan gelinay xilliyo badan soo marnay waxaanu maanta tababarkii halkan dugsiga Generaal Farxaan Maxashwaan ugu soo xidhnay dacfadii saddexaad ee ciidamada dib u xiraynta gobolka Sool Sanaag iyo Cayn runtii waxaan mahad ballaaran u celinayaa dhammaan hablaha sharafta leh ee nagala soo qayb galay munaasabadan saraakiisha gudoomiyaha iyo dhammaan dadka deegaanka ee ka soo qayb galay munaasabadan runtii markaan waxaan bilaabanay waana lagu yaabanahay wax la islahaa suurtoobi mayso sidoo dadku hadduu go'aan ku gaaro inuu wax qabsado isaga dawlad soo noqda dadku hadduu isla kaashado oo wax isla qabto wax walba uu samayn karaa qofka bini'aadanka ah hadduu la yimaado hami iyo dadaal iyo fikir meel walba uu gaari karaa waxaan aad ugu hambaliyaynayaa ururka dhiirane oo aan maanta halkan tababarka ugu soo xidhanno oo runtii juhdi iyo dadaal dheer saraakiisha iyo macallimiinta iyo tababarayaasha oo noogu soo dulqaatay duruufo aad u adag aad baan u mahadinayaa ugu bogaadinayaa gobonnimada waxaa la dhahaa waa wax adduunka waxa ugu qaalisan waa gobonnimo qofku wax naftiisa uu kaga gamo intuu naftiisa u huro uu kaga gamco oo u qalanta naftiisa waa gobonnimo iyo xorriyad waxaanu maanta halkan idinka cadaynaynaa qadiyadda iyo mabda'a iyo deegaanada amniga deegaanka inaanan cidna magan uga noqon doonin cid kasta oo soo faragelisa deegaanada ama khalkhal amni ka wada inaanu gacan bira kaga hortagi doono waxyaabaha nagu kalifay inaanu iskaa wax u qabso aanu ku shaqayno markaanu aragnay dhiigga iyagii maalayacni ku daadanaya oo maalin walba ama laba beelood oo isdilayo wax isku dilayaan aan la garanayn ama wax dilay la garan waayo gobolka iyagii haween iyo maalinta qof lagu dilo wax dilay la garan waayo waxaan go'aan ku qaadanay inaan dib dambe u daawan dhiigga shacabka iyagoo daadanaya fikirrada guracan oo shisheeyaha iyo cadowgu inoo soo jiiday oo kala goynta iyo burburinta ummadda Soomaaliyeed inaanu ka hortagno baan ballan ku hadday arki jirtay kuwa qadiyadoodu ay lacag tahay oo la gorgorin karo waxaan ballan idin qaadanaa inaanan ka leexan wadada saxda ee aan ummadda ku badbaadinayno waxaan u hambalyeeyaa mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan intii madasha ka soo qayb gashay bahda saxaafadda dhammaan saraakiisha ciidanka iyo macallimiinta hablaheena sharafta oo runtii meeshaanu ka dhiban weynaya iyo dhammaan bulshada rayidka oo deegaanka daafihiisa kala duwan nooga soo baxday
haddaba inteenna haddaan wada hadallo hablow maxaad u timaadeen ma riwaayad iyo sacabtun baa u timaadeen mise wax dhabaad u timaadeeno danu ad waxa dhabtii waa maxay haddaba isweydiinay waxa dhabtii waxa weeye jiilka dhalan doona waxay dhali doonaan kan ma hadir jira ee dhulbaanta lagu sheegay dhulbaanta uu dhamaaday wuxuu dhalanaya marna uu dhalanaya kaasana door ka xoreyn doona dalka intiinan iyo qoliyaha koofiyadaha sita iyo riwaayadda garowa taal midna ku xorooyn maayo dhiig buu ku xoroobayaa sol dhiig geesi u dhintay oo la gowracay buu ku xoroobay kuma xoroobayo riwaayadda iyo been sita gabdhahu رجعوا كويا يلا لا هل كان عيدي كذا تلفون قروا ايار او سلعه او كوغان عادين $1 بان كوتوينا تراس كما تقالين وحاسدين انت يا حاسدين انا كنت جوجنا قرو وما ترتين يا انو كا قادنا عانتين سلعه انو كا قادنا كو قبنو دب يا غواد waa kuwan ku la seeri waa kan kamid baa sarkaal buu sheeganay ma yihiin dad xora oo meel sharaf ku leh hadii la yiraahdo waxba idin joogo waa been dhulbaanta uma gudboosan inuu dhiig ka qubno inaan dibadnimo gudboosan إن هذا كا هبيك فرحان يفيصل الكلام تبايد إلا صودا واي أنا قولي جاي لي فرحان أنا قاري جاي ناقص المصدر الغار واضحة وحبالي هنا عونينو لويس ورا الدبي توجي هذا دون إنسان إنه حرينا دول كندي وإن كنت على جلا إن دمانو سيدي فرحانو دي تيرا ودي كوتشي إلهي بيد كوريا aad baan guudaan idinku mahad celinaya tani waxay muujinaysaa sida aad diyaar ugu tihiin makhraatigii haddeer dhaartii idin dhaarinayay sanankani dadkaan israado soo ciil u dhinteen buu ka mid yahay ma aha waxa kan aad idinka muuqday muuqaalkani waxaanu makhraati u furaynaa inuu ciil yahay dhaartu haddayna dhaarinayo inaynu dhibanno diyaar ma u nahay inaad diyaar u tihiin ragow dumar waxaa muujinaysaa saacadaha aad qoraxda taagan tihiin baa muujinaysaa sidaa darteed aad iyo aad baan idinka mahad celinaya halkan waxaanu sida saraakiishii horeba u sheegtay aanu ku soo xidhnay difcaddii saddexaad dugsiga jenaraal farxaan maxashwaan ururkiisa dhiirane difcaddiisii saddexaad baanu 6 bilood kadib tababar dheer oo aad u xadaafiira oo dagaalka iyo tabaha noocyadeeda kala duwan ciidankan la baray habeenow maalin ugu soo xidhnay maanta oo ay bisha 11aad kow tahay iyadoona loo furay bishii 5aad kowdeedii 6 bilood oo jagaanjagi ah oo habeenow maalina baanu dufcadda saddexaad ee dhiirane halkan ugu soo xidhnay sidii ragga horeba u sheegeen ma aha ugumana horeyso ugumana dambayso tusaale yar raggani waxay u tababaranayeen wakhtiga intaa leh waxay xadaafiirtaas iyaga iyo mas-uuliyiintoodu dhibka aadka u faraha badan ay u marayeen muxuu yahay ani yar idinka soo waxa uu yahay waxay u abuuran yihiin jamhadda dib u xoreynta SSC ciidan siyaasad kale u abuuran maaha waxay ka kooban yihiin sool iyo sanaag iyo cayn ujeedka ay u abuuran yihiinna waxay tahay inay xoreeyaan deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn kuna soo celiyaan shacabka taladoodii ay gacanta dib ugu soo celiyaan
oo ay iyagu masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan taasay u abuuran yihiin ayna u tababaranayeen qodobka labaad waxaa weelisa gabdhaha sharafta leh iyo hooyooyinka halkaa taagan qofka aadanahay waxa uu ka arado waxa ugu xun sharafta waxay inamadani u tababaran yihiin oo u taagan yihiin oo aan anigu kow ka ahay oo ay iyagu dhaar isku marsadeen annahan ku hoggaaminayaa gabadhaa sharafteeda in la soo celiyo lacag ma joogto waxay joogtaa naftooda gabdhow haddaad aragteen kuwa cadowga soo hagaya oo maxay ahayd idin dhibaya oo idinku qabiila hadda waxaad hor taagantihiin oo maanta aad nasiib u yeelateen kuwa ilaahay hortii isu maray inay naftooda ku soo iibiyaan aradka nafteena dharkiina ay u baahan tahay sharaftiina inay soo celiyaan kuwa ilaahay hortii isku dhaarsaday una taagan baad maanta hor taagantihiin hadda kuwana qalbigiinu waa ku qaboobi yaa kuwana qalbigiinu waa ku qaboobi war maxaynu ku ballansannahay daraawiishay gabadha maxayna uga ballan Allahu akbar sidii abwaanku sheegay abwaan ka jawaabnay gabaygaagii ahaa war hubka ma qaadanaa mise hay tixda waliga ya yeenu gaabta duulayno war abwaan kaaga jawaabnay galabtaanu duulayna waxba inaan cadowga halkan uga hanjabaa waxba macna ma sameynayso horena waanu isu naqaanay hadeerna way arki doonaan waxaan ula nimaadno iyaga intaas kaga gudbay